sawaabahay dhismaha caafimaadka waarka aan ugu tala galay oo runtii qiimeeyntooda halkan aan ku hayo $10718 ayuu ku kacaya waarkaas oo ah waad weyn oo aan ugu tala galay rag inuu sarrahan cusub hadda aan dhignay loo dhigo hadii ay ka dhigo qaybta dumarkana qaybtooda loo dhigo halkan aynu ku jirno kaamboolkan in shabag hareeraha loogaga sameeyo oo ay dumarka laftooda halkan la dhale ku nastaan mar waxba gaaban loogu xidho ay noqdaan qololkaasi meel la seexdo oo habeenkii meel ay hurdo tagaan oo gogashoodu u taalo oo kaliya ay noqdaan laakiin aan noqonin meel lagu xidho oo ama quful lagu isticmaalo ama silsilad lagu isticmaalo hadii aanu arintaas aanu ku rajo weynahay noo hirgasho waxaanu rajo weyn ka qabnaa in aanu runaantii waxaan qiimeyntan iyo naqshadana waxaan ku wareejinayaa wakiilkii alaabta nagu wareejiyay baan u dhiibayaa si aanu baryadii TV ka sheegay isna noola baryo tago oo wadaada qaybta labaad soo dhisa idinka waa tan ku wareejiyay xilka guddiba hadii ilaahay ka dhigo guddidii waa aniga ku wareejiyay iyada la soo maray waxba kama qabno insha Allah taala waanu jecelahay in wax walba nala ogaado oo hareertana lagala taagnaadaan oo aad u jecelahay xilku waa shay aad u culus waxaan ku gabagabeynayaa maaha qoladii koowaad ee cusbitaalka soo caawisan runtii Australia Melbourne magaalada la yiraahdo marar badan waliba Ramadaanadii u badan ayay ka soo gaadhay caawin cusbitaalkan waxa kamid ahaa jaaliyada London oo Faadimo Saciid soo wakiishay oo dhismaha ka sameeyay cusbitaalka waxa kamid ah meesha London oo kale hatta in dhalinyaro oo ciyaar iskuulaba $500 jeebkiisa intuu ka ururiyay soo diray runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaantood waxaan kale oo runtii gaarsiinayaa ma ahayn cusbitaalka dibadda laga caawiyo 95% waxa caawiya berbera runtii oon aad iyo aad ugu mahadcelinayo mar walbana aan doonayo inaan arinta ku laba jeer celiyo ma aha hantida maanta dibadda ka timi horteena taala laakiin waxa ka badan oo ka badan ta ay runtii bixiyaan dekadu ay bixiso oo runtii maareeyaha dekadu ilaa khayr siiyo oo ugu deeqo cusbitaalkan iyo ka degmada iyo ka surgicalka intaba hadday guna shaqaalata iyo wax la mid ah dawladda hoose oo kale qayb kamid ah bay naga caawiyaan waxa kamid ah total oo shaqaalaheedu ay iska jaraan oo ayaguna wixii loo baahay ku bixiyaan waxa kamid ah dad kale oo iyagu sida Ibrahim Armo kale rag badan oo kamid ah magaalada jooga oo muxsiniina inada oo kale inada waa bixin jiray Allah naxariisto waxa kamid ah rag badan baa kamid ah oo iyaguna soo bixiya haday tahay xoolaha nool oo sida Ali Ibrahim Ciise runaantii iyo raashinkaba way soo bixiyaan waxaan leeyahay anagu gacmihii runtii hawsha qabanayay baanu ahayn laakiin dadku aad iyo aad u wanaagsan yihiin waxaan leeyahay mahadnaqeeg waxba u tarayo laakiin waan ducaynaya waxaan leeyahay ka abaal mariyo jannana ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ugu bedelo caafimaadna ilaahay subhanahu wa ta'ala daaima siiyo kuwa halkan joogana caafimaad bay ugu baahi badan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad degdeg oo sareecana Allah siiyo sayreeroodii iyo dadkoodii ehelkoodii ay ugu maqnaadaan runtii waxaan Universal TV baan ugu dambaysiinayaa mahadcelinta oo arinta lafteedu ay ka dhalatay warbixinta ku xigtay oo khadar kulli iga duubay runtii nimankii la soo hadlayna isla igu tilmaameen runtii waan isweynay xajkan ku yar maqnaa runtii markii aan xajka ka iigo way la soo xidhiidheen Universal TV na waxaan leeyahay runtii wuxuu noqday TV caalami ah waxaan leeyahay intan aad wado ugala sii dhawow oo hawsha ku gaabnaanin meelo badan idinka ku dhiino idinkoo muxsinimo sameynaya warbixinta ka soo ururiya imankana waxaynu mari doonaa marka uu maamulaha cusbitaalku aan ku wareejinayo warbixinta inta hadhay idin siiyo qaybaha kamida iyo qaybo waaro aanu sameynay laftooda waarkiisa oo ka soo ururiya aanu sameynaa si tusi doono oo dad badan ay hurdaan qaybta aanu ugu tala galnay inaan waar ka sameeyno oo geyn doono inahaas aan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa runtii Ali Aadan Wacays waa maamulaha cusbitaalka nasashada runtiina hawsha ugu badan waa ninka ay ku dhacdo runtii habeen iyo maalin baa u jooga isaga iyo shaqaalihiisu runtiina aan leeyahay waa dadka aan wali u abaal gudin inaanu wax u qabanno marka waxaan ku soo dhaweynayaa Ali Aadan Wacays Ali Dheere fadlan waxaan kale oo runtii deeqda uu nagu wareejiyay Xuseen walaalada soo direen waxaan si toos ugu wareejinayaa Ali Aadan Wacays oo runtii ninka ka mas'uulka ah hawshan shaqaana insha Allah sidii loogu tala galay anaguna la joogi doonaa mar walba bismillaahir rahmaanir rahiim hadalkii Mustafa dhameeyay حاجة إسبتالك وبينته إسبتالك هي ربما مارته قدرية هرت واحد ما هذا غيا
dadkii caawimadan geystay iyo kuwii hore caawin jiray waan u mahadnaqaynaa ilaahay waxaan leenahay ka jaaysiiyo waxaan kaloo mahadnaqayaa guddida caafimaadka waxaan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan dee cusbitaalkii waxa weeyaan waxaan la keenayo iyagaa lagu aaminaa waxa weeyaan waa markii la arkay sida wax u qabanayaan ayaa ummaddii ay soo aamintay sidaa darteed waxaan leeyahay iyagana waa niman ayagu iskood u shaqaysta markaa waysa soo xilqaameen nin kastaaba shaqo u haystaa gooniya markaa waxay u hureen naftoodii waxay u hureen inay ummadda caawiyaan cusbitaalkan labada cusbitaallada saddex cusbitaale ka dhisan gobolka saaxil sidaa darteed waxaan leeyahay guddida caafimaadku ilaahay ha ka jaaysiiyo ay hawshan ay qabteen ee fidaa'inimada fidaa'i bay guugta waxaan warbixin yar baan maaragtay taas waa mahadnaq waxaan warbixin yar baan ka jeedinaya halkan waxa weeyaan waxyaabahan soo gaadhaa hadday noqoto raashin iyo hadday alaab noqoto iyo hadday dawo noqotoba farowdul masaxaya waanu haynaa cusbitaal dad ummaddaanay ka yimaadeen waxaan anagu ka keennay oo aan anagu soo iibinay maayo waa wax ummadda ka yimid dadweynaha ka yimid waxa weeyaan cusub Mustafa yimi waxa weeyaan hay in cusbitaalkan dhismo baahay iyo shaqaalaha tababarkooda iyo gunadooda labadaas baa iyaguna muhiim ah oo maartay ugu daran waa labadaas laakiin xagga raashinka iyo xagga dawada aad baan uga maartay waxa kaloon anigu imika intaasaan waana ku mahadsantiin alaabtana waxa weeyaan sidii ay bukaanka u gaari lahayn aniga ilaahay mas-uuliyaddeeda guddudana iyadoo ila shaqaynaysa assalaamu calaykum qaybtan aad imanka arkaysaa waa qaybtii dumarka meelaha hor u duubay guryahan waa nasashadoodii habeenkii bay hurdo tagaan gabadh waliba qufulkeeda iyo waxeeda hoosta ka leedahay sideedabana waa ka mamnuuc raggu ma soo galo waa maanta maynu shirka u qabsannay sideedu dumarkaa iska leh dumarkaa daweeya iyagaa muda iyagaa u soo gala waxa weeyaan separate bay ka yihiin qaybta ragga dumarkay khaas u tahay runtii waana dhismahan marka dambe dib cusboonaysanay dhismaha ugu cusub waxaa ku jira runtii dumarka maadaama ay xagga daryeelka ugu jilicsan yihiin waxaan kaloo eegi doonaa qaybta ragga iyo waararkooda gabadh kamid ah kuwa ku jira cisbitaalka maskaxda ee berbera oo maanta loo bixiyey cisbitaalka nasashada ee berbera waa qaybta dumarka waxaana hadda ku jira 7 dumara dowal saymanka arkaysaan qaybtan waa qaybta ay ugu talagaleen dadka inay caweyska ay iska daawadaan ama ay ku nastaan waqtiyada ay aanay daweynku u socon ama aanay hurdada ku jirin waxaan halkaa uga daaran tv sida uu noo sheegayo Mustafa Cali Cumar Kujoog qaybtana waa nasasho qaybtan labaad ee ka soo horjeedana waa nasasho waa waran caadi ah wayna arki doonaa sariiba u yaala lama qufulo iyaga iska seexday iyagana ka soo baxa aad iyo aad bay ugu fiican yihiin TV-gan hadda hortooda yaala saacadaha aanay shaqada lahayn ama aan la mudayn ama aan hurdin ayay ku nastaan quraanna waa ka dhageystaan xatada kale iyo wararkana way kala socdaan si caadi ah oo maaweelaha baanu loogu talagalay inay ku isticmaalaan qaybtaas waa kijadii iyo matalan nafaqayntii runtii waxa xusid mudan bishan hadda ina dhaaftay oo kale waxaan u qalay 450 neef oo aadaya si aanu bal u soo celino mar walba nafaqadooda runtii aad iyo aad bay xagga cuntayntii raashinkoodu wanaagsan yahay waxaanu siinaa 4 jeer wax runtii sharaab mara iyo 3 jeer oo cunta aad iyo aad bay wanaagsan yihiin waa nasashada noogu jira runtii waanay fiican yihiin waa ragga bogsaday imanka aanu insha Allah xaafadihii la doonayo inay dhawaan ka qayb galaan daawadayaal imankana waxa aynu soo dhaxgalnay qaybta ragga loogu talagalay waana qaybta dhismaheeda arkaysaan inuu yahay muddo hore in dhismahani la dhisay qaybtaas oo jeeda
waa qaybta aanu imanka naqshadiisa idin tusaynay aanu ugu talagalnay inaanu kasoo